Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan jeclaan lahaa in aan wax yar aan ka hadlo ama wax ka iraahdo jecel. Horta jecelku waa maxay? Muxuu yahay? Muxuu ku saabsan yahay? Ma wax la cunaa? Ma wax la cabaa? Ma wax la beertaa? Ma wax lagu socdaa? Ma wax lagu seexdaa? Horta waa maxay? Waa maqalnaa marar badan jecel, 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 jecel. Waxaasoo laga sheekeynayo. Fanaaniinta ka hadlayo, ku heesayo, abwaanadayo qoraayo oo ka hadlayo, dad fara badan oo ka sheekeynayo. Waa maxay horta jecelka? Muxuu yahay? Ma wax la isla fahmaa? Mise waa wax shaqsi qof bini'aadan ah kaliya ka timaado? Sidee buu yahay? Horta muxuu yahay? Sidee loo dareemaa? Halkuu ka yimaadaa? Siduu u beermaa? Siduu u dhashaa? Ma sidii beeraha miraha la guranayo kale lagu beeraa? Ma wax intaad abuurtid, soo baxo, barbaarisid, dabadeedna miro dhalo, mirihii aad ka guratid, mirahaas aad cuntid, kadibna aad ku kifaaxdid ba. Horta waa maxay jecel? Micnaha jecelku yaa inoo qeexi karo. Of course ma haysano hadda culumo oo ka hadlayso jecelka iyo wuxuu yahay. Laakiin shaqsiyan waxaan ka aaminsanahay iyo wuxuu yahay baan idiin sheegayaa. Horta jecelku waa wax dareen ah. Jecelku waa dareen qalbiga bini'aadanka ah ku abuurma. Kaas oo ka dhasha laba qalbiyo oo isu soo dhawaado oo isfahma. Maahan qof bini'aadan iska socda inaad iska jeclaanaysid maaha. Jecelka markii laga hadlayo lamaanaha lab iyo dhediga dhex mara markii laga hadlayo waa dareen. Dareenkaas oo labadoodiba dhexdooda ka abuurma isfaham kadib. Markii la isfahmo wada hadal uu dhaco, labadii qof ay iska helaan oo midba midka kale uu dareemo yaa jecelkan uu dhashaa. Hadduu dhashana waa la barbaariyaa. Haddii la barbaariyana dee miro buu dhalaa. Miro hadduu dhalana waa la gurtaa. Haddii la gurtana dee waa lagu noolaadaa oo waa lagu kifaaxaa. Sidaas ba horta ani waan u micnaan lahaa. Idinku celiyo anigoo ku adkeynaya carabka. Jecelka dareenka ah aan ka hadlayo waa midka dhex mara lamaanaha. Labada qof oo is doonayo ama guur iyo mustaqbal iska rabo ayuu dhex maraa. Khasabna maaha labadoodu isku si inay isku dareemaan maahan. Ama jecelku si siman inuu u dhex maro maaha. Way kala duwanaan karaan. Badanaana waa dhacdaa in labada qof isku si oo markii la cabiro si equal ah inay isku jeclaadaan, isku dareemaan. Marar badan way dhacdaa. Mararka qaarkoodna waxaa dhacda hal qof kaliya inuu jecelka uu saameyn aad u ballaaran ku yeesho. Halka kan kale oo qofka kalena uu ku yar yahay dareenka isaga ah aanu ka hadlayno. Taasna mararka qaar waxay dhalisaa isfaham darro. In labadii qof maadaama si siman ayna isu dareemaynin ama dareenkii qalbiyadooda ku jiray uusan equal ahayn oo meeshaasi wax la dhaho imbalance ay ka dhacayso in ay isfaham darro ay ku timaado. Waayo labadii qof si equal ah isuma dareemayaan, si equal ah isuma fahmayaan, noloshii dhinac bay u janjeertaa. Haddii saas ay dhacdana waxaa dhacayo in labadii qof dhexdoodii isfahmi waayaan. Haddii isfaham darro ay timaadana halkaasi dee lagu kala dareero. Ileen labadii qof wixii isu hayay maaha wax siman oo wax balance ah maaha. Dee wixii haddaysan balance ahaynna wax soconayo ama wax sii socon doono ma noqonayaan. Mararka qaar way dhacdaa. Mararka badanaana waa dhacdaa si siman oo equal ah oo balance ah in labada qof ay isku dareemaan, isku fahmaan, nolosha halkaas iskula daadihiyaan,
halkaasi ay ka ambaqaadaan safarkoodii nololeed, halkaas oo Ilaahay intuu u qoray oo u qadaray ay isla gaaraan masaafada noloshooda. Marka walaalayaal, jaceylka aniga waan aaminsanahay, waan garwaaqsanahay, waana jeclahay in aan wax jeclaado, in la i jeclaado, in jaceylkayga uu noqdo mid miro dhalo, in si siman oo hadda aan ka hadlaa equal ahna aniga qofka lamaanahaygana aan isu jeclaano waan jeclahay. Alxamdulillah, waa wax dareen Ilaahay nagu dhaliyay, waa wax Ilaahay nagu beeray. Marar badan procedure-kii habraaci loo mari lahaa ama sidii loo abuuri lahaa baa dadka ay ku kala duwan yihiin, waxa la isku khilaafaa, dhibaatooyin fara badan laga maraa. Just waa nolol, nolosha bini'aadanka ayaaba sidaas ka kooban. Qofka bini'aadanka ah sidiisaba in uu dhibaatooyin fara badan oo kala duwan uu maro, uu waxyaabo caqabadooyin badan uu la kulmo, halkaas caqabadooyinkaas uu la xarbiyo, uu dadaalo, kadibna dadaalkiisii ee guul uu ku gaaro way dhacdaa. It's just like qofka beeraleyda oo kale markaan tusaale usoo qaadano. Markii xilli roobka la gaaro oo dhulkii uu doogsado oo barwaaqo noqoto, qofka beeraleyda markuu beertiisa abuuranayo, mirihii buu horta beeraa. Mirihii hadduu beero, way soo dhalataa. Haddii uu mirahaasi soo dhasho oo banaanka u soo baxo, barbaarin baa looga baahan yahay, waraabkii, nafaqeyntii, cawskii laga gurayay, ilaalintii waxyaabaha xasharaadka ah iyo waxyaabaha cunayo kale, beertaas in laga ilaaliyo, la waardiyeeyo, la xiro, la silig lagu awdo, ilaalin fara badan iyo taxaddar fara badan la sameeyo. Kadibna halkaasi beertii ama markay baxdo oo waqtigii ay miraha dhali lahayd la gaaro, halkaasi iyadii oo weli la nafaqeynayo miro dhaliso. Mirihii markay dhaliso, mirahaasi waa wixii loo baahnaa oo lagu intifaacayay, waa laga gurayaa. Haddii laga gurana, dee qofku wuxuu ku soo dadaalay buu helayaa, halkaas ayuu isagana ku kifaaxayaa. Intaasoo dhan uu soo marayay, wuxuu u marayay one day one time in uu dadaalkiisaas miro dhaliyo, uu asagana uu ku faa'iido. Mar kastaba wax walba oo faa'iido leh waa loo dadaalaa. Dadaalkaas isaga ahna dhibaatooyin fara badan iyo caqabadooyin kala duwan baa laga soo maraa. Shaqsiyan qofka markuu dadaalayo uu caqabado fara badan la kulmo, caqabadaha qaarkood waxaad awood u leedahay inaad ka gudubtid ood ka baxdid. Kuwa qaarna way kula degayaan oo awooddaadii way ka baxsan yihiin oo lama xarbin kartid. Si kasta haddaad u dadaashidna, mar walba iyaga ka awood badanaya. Marka waa xilliyadaas oo kale waxaa u baahan tahay caawimaad inaad heshid, in lagu caawiyo, lagu garab istaago, lagu gargaaro, dhinaca kastaba. Ilaahay adoo number one ku xirmaayo, Ilaahay caawimaad weydiisanayo, bini'aadankiina ku caawinayaan, waxaa laga yaabaa in aad caawimaad heshid. Haddii caawimaad ay heshidna, caqabadihii iyaga aad ka gudubtid, halkaasna hankaagii iyo hamigaagii iyo meeshii aad higsanaysid aad ku gaartaa. Wixii aad u baahneed ood ku dadaalaysid in aad mirahooda guratadna, halkaasi aad ku guuleysanaysaa in aad miraha guratid. Marka jaceylka waa sidaas, dadaal fara badan baa laga maraa, caqabado fara badan baa lagala kulmaa, waa la xarbiyaa, waa la dadaalaa, waa caawimaad baa la weydiistaa. Dadka kuu dhow, dadkaas leedahay way ku caawin karaan, adigoo marka ugu horreysa Allihii ku abuurtay ku hormarayo. Kadib markii caawimaad heshidna, waxa aad ku dadaalaysid baad helaysaa, oo ah in aad qofkii aad jecleed isagana uu ku jeclaado, aad is jeclaataan si siman, halkaasna aad ku guuleysataan,
noloshii heerkii aad jecleedeen aad ka gaartaan. Wabillahi